tani ma ahayn soo dhaweyn oo kaliya waxay ahayd muujinta xiriirka wada dhalashada ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti. madaxda dawladda Soomaaliya uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle wafdigiisa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha halkaas oo labada madaxweyne ay salaan sharaf kaga qaateen cutubyo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya. Geelle ayaa booqashadiisa waxa ku wehelinayay wasiirada arrimaha dibadda, difaaca, awqaafta, arrimaha bulshada iyo 10 ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dalka Djibouti. dadweynaha ku nool magaalada Muqdisho ayaa isugu soo baxay wadooyinka kuwaas fululaya calaamada labada dal. labada madaxweyne iyo wafdiga la socda ayaa kulan gaar ah waxay ku wada qaateen madaxtooyada halkaas oo madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu soo dhaweyn ugu sameeyay wafdiga dalka Djibouti una ku amaanay madaxweynuhu isgarabtaagii dawladda Djibouti dib u kabashada Soomaaliya. waa maalin taariikhi ah oo xaqiiqatan ka turjumaysa xiriirka labada dal iyo labada dad oo waalaha ah. xiriirkaas taariikhiga ah aan leenahay iyo xiriirka gaarka aan leenahay waxa weeye xiriir bulsho, xiriir dad iyo dad ah, maxaan ku raahdaa xiriir amni, inaan xoojinno iskaashiga haddii noqoto dhanka dhaqaalaha iyo wax wada qabsiga. xaqiiqatanna waxaan iloobi karna ma aha inta Djibouti iyo hogaankaaga uu u taray dalkan. insha Allah waxaan rajeynayaa in iskaashigaas aan sheegay oo dhinac walba taabanaya waa hadalkeena maanta iyo biri inay noqdaan wax miro dhala oo wax weyn ay ka soo baxaan. madaxweyne Geelle oo ka muuqatay sida uu ugu faraxsan yahay imaashihiisa Soomaaliya ayaa xusay heerka sare ee uu gaarsiisan yahay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal ee walaalaha ay wadaagaan. dadweynaheenu waxa uu jecel yahay inaan iskaashiga aan sii biirino, waxa uu jecel yahay inaan wadaagno dib iyo dheefba, waxa uu jecel yahay inaan isku duubnaano. anaguna waxaan fulinaynaa waxa uu dadweynaheenu leeyahay. waxa aan jecelnahay in aan aragno yani Soomaaliya oo qayrkeed intaa ay daahday in ka badan inay qayrkeed dhaafto, in ay soo ceshato sharafteedii iyo karaamadeedii iyo raganimadeedii, in ay annagu waxaan ka dhiganaynaa wehel baan ka dhiganaynaa Soomaaliya. wehel bay noo tihiin, annaguna wehel baanayna. marka laga soo tago xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Djibouti, dhinaca kale Djibouti waxa aad loogu xasuustaa dib u goolida dawladnimada Soomaaliya oo ilaa maanta ciidamada la magac baxay Hiir Walaal ay qayb ka yihiin howlgalka nabadgelyada ee Midowga Afrika ee Soomaaliya. Ali Baashi Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya.